Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Macalin Mustafe. Kusoo dhowaada cashar muhiim ah oo aad maanta ku baranaysaan hadduu Ilaahay idmo xarfaha af Soomaaliga ee loo yaqaan shibanayaasha iyo weliba sawiro badan oo dabcan ardayga baraya sida loogu dhawaaqo xarfaha af Soomaaliga. Macalin Mustafe ayaa casharkan soo jeedinaya hadduu Ilaahay idmo ila socda. Xarafka ugu horeeya af Soomaaliga waa xarafka ba, isagoo far weyn loo qoray isagoo far yar loo qoray halkan aad ka aragtaan. Af Soomaaligu waxa uu leeyahay xaraf kasta waxyaalo badan oo ka bilowda ayaa jira, balse waxaan idin tusayaa xaraf kasta waxaan ka soo qaadanaynaa 4 shay oo ka bilowda xarafkaas si uu qofku u barto ama ardaygu u barto sida loogu dhawaaqo xarfaha af Soomaaliga. Xarafka ba waxaa ka bilowda bisad, dadka qaarkood waxay u yaqaanaan Soomaalida yaanyuur, baaldi, booyad, buur. Halkaas waxaad ka aragtaan shaqalka gaaban iyo shaqalka dheer ba. Tusaale ahaan haddeer bisad shaqalka gaaban ayaa ku jira oo ah i iyo a. Baaldi waxaa ku jira shaqalka dheer oo ah aa iyo i oo shaqalka gaaban. Maxaa isku tegay xarafka ba iyo shaqalka dheer oo ah aa, la, da iyo i baa isku tegay. Maxaa lagu dhawaaqayaa baaldi, bisad. Ardada qaarkood markii qor la dhaho bisad waxaa laga yaabaa inay qoraan ba iyo laba i iyo sa iyo a iyo da markii lagu dhawaaqayo uu yahay bisad, laakiin sida saxda ah waxa weeye bisad ama yaanyuur. Booyad ardayey waxa weeye waa gaari dabcan biyaha ayuu dabcan soo dhaamiyaa oo markaas baraagaha ayuu ku shubaa. Ciyaalka Soomaaliya ku koray ayaa aad u yaqaana. Waa gaari biyaha qaada ama meeshaas ay u jeedaan oo dhan waxaa ku jira biyo. Biyahaas ayaa waxaa hadhow lagu shubayaa barkadaha ama meel ay dadku biyaha iska cabaan. Buur waa taqaanaan isaga Soomaaliga maxaa weeye buur. Hal mar ayaan ku celiyo baaldi, bisad, booyad, buur. Xarafka ba intaas ayaan ku dhaafaynaa. Waxaa ba ku xiga xarafka ta. Ta far weyn saasa loo qoraa, ta yarna saasa loo qoraa. Waxyaalo badan ayaa ardadu laga yaabaa inay garanayaan oo ka bilowda xarafka ta, balse waxaa tusaale ahaan idiin siinayaa timir waxay ka bilaabataa xarafka ta. Talaagad ama talaajad xarafka ta ayay ka bilaabataa. Toon, tuubo. Ardayey halkaas waxaad ka aragtaan shaqalka gaaban iyo shaqalka dheerba dabcan xarfahan waa ka arki kartaan. Tusaale ahaan talaagad maxaa ku jira tusaale ahaan a'dan waa shaqalka gaaban, 2 a oo shaqalka dheer, 1 a oo shaqalka gaaban. Markii la isku daro maxaa weeye talaagad. Timir shaqalka gaaban oo ah i iyo i ayaa ku jira. Toon shaqalka dheer ayaa ku jira oo ah oo waxaa isku tegay ta iyo 2 oo iyo na. Tuubo maxaa ku jira shaqalka dheer. Sidoo kale Soomaaligu wuxuu leeyahay af Soomaaligu xarafo laba jibaarma ama laba dhaca. Dib ayaad ka baran doontaan. Tusaale ahaan haddeer 2 ba ayaa hadda u jeedaan ardayey. Markii lagu dhawaaqayo tuubo miyaa la dhahayaa mise tuubo? Waxaa la dhahayaa macnaha carabiga shad baa lagu dhahaa. Waa ba'dan baa laba dhacaysa. So marka waxaad dhahaysaa markaa akhrinaysid tuubo xoogaa ba'daas adkeynaysa. Aan idinku celiyo tuubo. Xarafka ta intaas ayaan ku dhaafayaa. Xarafka ja. Ja'da weyn saasa loo qoraa, ja'da yarna saasa loo qoraa. Xarafka ja ardada qorbaha ku dhashay badanaaba inay ku dhawaaqaan waa ku adag tahay. Marka isku daya inaad iga daba dhahdaan ja, ja, ja,
ja maasha allah aada u fiicantiin waxaad tihiin laacibiin ja maxaa ka bilowda waxaa ka bilowda jeedal jeedal jeer jeer joog joog jaranjaro jaranjaro jeedal waxa weeye waa fiilo ama ul waxaa lala dhacaa fardaha oo kale markii la rabo inay xoog u socdaan waxaa lala dhacaa jeedal waa ul yar ah oo lala dhaco fardaha laakiinse fardaha Sweden cidna ma disho ama qurbahan fardaha jooga laakiin wadankeena oo kale markii faraska la rabo qof baa faraska korka ka fuulaya faraska waxaa la rabaa inuu aad u ordo soo jeedalkaas la isticmaala waa ul yar ah oo fiilo camal ah markii jeedalka lagu dhufto faraska aad buu u ordayaa jeer iyadana waa xayawaanada ka mid ah Ilaahay abuuray joogna waa taqaanaan jeerna maxaan dhahaa jaranjarana u jeedaa marka ardayay muuqaalka dheeraan ayaa xoogaa aad inaa u sharaxo xarfaha qaybtood uma baahna marka waa ka gudbaynaa xarafka jana intaas ayaan ku dhaafaynaa xarafka xa waxaa ka bilowda xidig iga daba dhaha ardayay xidig xaarin xoolo xabag uma baahni inaan sharaxno muhiimad waxa weeye inaan dabcan aan barano xarfaha af Soomaaliga iyo sida loogu dhawaaqo haddii aan sawiradan mid aan idinku sharaxo muuqaalka ayaa wuxuu noqonayaa muuqaal aad u dheer muuqaalku markuu dheeraadana ardada qaybtood dabcan way ka caajisayaan inay daawadaan ama ma awoodi karaan inay daawadaan muuqaalkaas soo waxaan isku dayaa markasta inaan soo koobo xarafka xana sidaas ayaan ardayay ku dhaafaynaa maxaa ku xiga xa ba waa soo aragteen ta waa soo aragteen ja waa soo aragteen xana waa kan xarafkay ku xiga is leedihiin maasha allah aada u fiican tihiin waxaa ku xiga xarafka khana xoogaa aad ayuu dhawaaqaas ugu adag yahay ardada qurbaha ku dhashay waxaa isku tegay xarafka ka iyo xarafka ha baa waxay noqdeen walaalo ama way isku tageen markay isku tageenna waxaa kasoo baxaya dhawaaqa ah kha iga daba dhaha ardayay kha waxyaalaha khada ka bilowda shayaasha waxaa ka mid ah khamiis iga daba dhaha ardayay khamiis khad khasnad khudaar xarafka khana saasaan ku dhaafaynaa xarafka da tusaalaha waxa u ah dacas iga daba dhaha ardayay dacas deero diiq doon aan mar kale idinku celiyo dacas deero diiq doon xarafka ku xiga waa ra xarafkan ra'na aad uu ugu adagay ardayda dabcan qurbaha ku dhashay iga daba dhaha ardayay ra maasha allah laacibiin baa tihiin aad u fiican tihiin tusaale maxaa u ah ra'da rati ri rah rooti mar kale iga daba dhaha rati ri rah rooti maasha allah aada u fiicantiin waxay tin arday laacibiina xarafka ku xiga waa xarafka sa xarafkan ma adka waxyaalaha sa ka bilowda waxaa ka mid ah iga daba dhaha ardayay saacad sac seef
suul suul mar kale ardayga daba dhaha saacad saacad sac sac seef seef suul suul xarafka sa'na saas ayaan ku dhaafaynaa xarafka sa' maxaa ku xiga aan dib idiin xasuusiyo waxa soo aragteen ama soo barateen ba ta ja ha qa da ra aan isla akhrina arday mar kale soo bilaabaynaa inaa ila akhrisaan baan rabaa ba haye maxaa ku xiga ta ja ha qa da ra sa xarafkee ku xigaa is leedihiin maasha allah fariidyaal baa tihiin inaad garanaysaan waa ogahay waxaa ku xiga xarafka sha sha'na sida aan horay idinku soo sheegay waxa horay usoo aragtaan xarafka kha oo ah ka iyo ha isku tegay maxaa samaynayaa dhawaaqa kha sha'na maxaa isku tegay labadee xaraf isku tegay ardayey waxaa isku tegay xarafka sa iyo xarafka ha baa walaaloobay way isku tageen waxaana kasoo baxaya dhawaaqa sha macnaha sa iyo ha markii labada xaraf laysku geeyey waxay la baxeen magaca la dhaho sha ama wax loogu dhawaaqaya sha soomaaliga markaad ku aragto buugga aad akhrinayso xarafkan sa'da iyo ha'da isku tegay waa inaad ogaato inay yihiin sa'da iyo ha'da isku tagto lagu dhawaaqo sha maxaa waxyaala sha ka bilowda maxaa tusaale kuwa ah shaag shaaga gaariga ku xiran waa taqaanaa shaag iga daba dhaa arday iga daba dhaha shaag may kor oo hadla ardada qaybta ayr bay u akhrinaya isku day inaad kor u akhrisaan shaag shaag shabeel shabeel shaandho shaandho shimbir shimbir mar kale shabeel shabeel shaag shaag shaandho shaandho shimbir shimbir waa fiicantiin arday xarafka dha dha sida horey idinku soo sheega xarafka kha maxaa isku tegay ka iyo ha xarafka sha maxaa isku tegay sa iyo ha xarafka dha waxaa isku tegay xarafka da la dhaho iyo xarafka ha la dhaho waxayna la baxeen magaca la dhaho dha macnaha da'da iyo ha'da markii la isku geeyo ay walaaloobaan maxaa lagu dhawaaqayaa waxaana la dhahaa dha bay dheheen meel kasta aad nagu aragtaan caruuray da'da iyo ha'da aad ku aragtaan waxay rabaan inaad ugu dhawaaqdaan dha tusaale maxaa u ah dhalo iga dabdhe ardayey dhalo dhalo dhar dhar dhurwaa dhurwaa dheri dheri laacibiin ayaa tihiin mar kale aan isla akhrino dhalo dhalo dhar dhar dhurwaa dhurwaa dheri dheri aad ay wanaagsan tihiin xarafka ku xiga maxaa weeye xarafka ca maxaa tusaale waxa u ah aan isla akhrino caleen caleen cambe cambe calan calan ceel ceel aan mar kale isla akhrina ardaye xoogaa yara boosiinaya muuqaalkan diidaya inuu dheeraado caleen caleen cambe cambe calan calan ceel ceel halkan waxaa ka aragtaan muhiim ah calanka dalkeena hooye soomaaliya waa calan midabkiisu waa buluug xidig cad ayaa dhexda kaga taala calankeenu halkee u eegyahay baa u malaynaysaan ardayey waa calanka adduunka ugu quruxda badan waxa uu eegyahay cirka ama samada cirka haddaad fiiriso waxaad ku arkaysaa inuu yahay cirku buluug xidig dhexdana dabcan ayuu ku leeyahay calankeena cirka haddaad fiiriso xidiga badan ayaad arkaysaa xidigaas mid ka mid ah iyo samada ama cirka ayaa calankan dabcan uu tusaale u yahay calankeena cirka ayuu u eegyahay ama samada xarafka cana saas ayaa ku dhaafaynaa waxa ku xiga xarafka ga tusaale waxa u ah aan isla akhrino gaari gaari dadka qaybtooda waxay dhahaan u yaqaanaan baabuur baabuur
geed geed guri guri geri geri aan mar kale isla akhrino arday gaari gaari geed geed guri guri geri geri aada u mahadsantiin waxaad tihiin laacibiin xarafka ku xiga maxaa weeye ga isleediin ardayay waxaa ku xiga xarafka fa magacyo badan oo soomaaliyeed ayaa ka bilowda xataa xarafka fa tusaale waxa ah faadumo fartuun firdowso magacyo badan oo fa ka bilowda ayaa jira wiilasha maxaa ka mid ah faysal farxaan ma garanaysaa magacyo kale arday oo ka bilowda xarafka fa ama magaca gabdheed ha ahaado ama magaca wiil ha ahaado waan ogahay waan dareemayaa inaad ay jiraan arday badan oo sheegi kara magacyo badan oo ka bilowda xarafka fa tusaale waxa uu ah xarafka fa aan isla akhrino fandhaal fandhaal hadda fandhaalkan oo kale a ujeedaan dha waa aragtaan dha'da maxaa weeye waa da'da iyo ha'da oo isku tagta maxaa loogu dhawaaqayaa dha soo fandhaal lama dhahayo fandaal waxaa la dhahayaa fandhaal waayo xarafka dha ayaa halka ku jira feero feero faynuus faynuus fuusto fuusto aan isla akhrina arday mar kale fandhaal fandhaal feero feero faynuus faynuus fuusto fuusto aada u mahadsantihiin xarafka xiga waa xarafka qa xarafkan xoogaa dhawaaqiisu waa ku adag yahay ardayda iga daba dhaha hal mar qa ku celi qa mar kale qa maasha allah marka ugu dambaysa aan isla dhahno haye qa aada u wanaagsantiin arday waxaad tihiin faridyaal fiican maasha allah xarafka qa waxa tusaale u aan isla akhrino qafil ama quful 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 maxaase le qoraalka ku qoran qafil qaanso qaanso qaado qaado qori qori ugu dambe aan isla aqrino markii ugu dambaysa ardayay qafil qafil ama quful quful qaanso qaanso qaado qaado qori qori xarafka ku xiga arday waxa weeye xarafkan oo loo yaqaano ka waxaa tusaale u ah iga daba dhaha kalluun kalluun kursi kursi kaneeco kaneeco kal kal mar kale iga daba akhri arday kursi kursi kalluun kalluun kaneeco kaneeco kal kal xarafkan ku xiga waa xarafka ardayay la iga daba dhaha la la'da weyn saasa loo qoraa la'da yarna saasa loo qoraa waxaa tusaale u ah lows aan isla akhrino lows leeb leeb liin liin laf laf xarafka ku xiga waa xarafka ma magaca ma ee soomaalida aad buu ugu badan yahay waxaa jira magacyo badan oo soomaali ah wiilasha ma ka bilowda sida maxamed maxamuud mascuud muscab waxaa kaloo jira magacyo badan oo gabdhaha ah oo ka bilowda ma sida miski muniira muna mumtaas mushtaaq magacyo badan magaca maryan magaca ma aad buu ugu badan yahay magacyada soomaalida aan mar kale ku celiyo waxaa tusaale u ah xarafka ma mooye mooye aan isla akhrina ardaye mooye mooye miis miis miishaar miishaar mas mas xarafka ku sii xiga waa xarafka na
sidoo kale magacyada nacda soomaalida aad ugu badan yahay tusaale ahaan waxa uu ah nimco, nawaal, nishaad. aad buu magacyada weliba magacyada gabdhaha aad ugu badan xarafka na maxaa tusaale u ah nal ama layr, nacnac, nacnac, naq, nibiri. xarafka na'na intaas ayaa uga gudbaynaa. waxaa ku xiga xarafka wa, waxaa tusaale u ah wiish. isla akhrino wiish, weyl, wan, waxar. xarafka ku xiga waa xarafka ha, waxaa tusaale u ah haan, hangool, haramcad, haldhaa. aan isla akhrino hal mar ardaya. haan, hangool, haramcad, haldhaa. xarafka ugu dambeeya shibanayaasha ama xarfaha af soomaaliga waa xarafka ya. waxaa tusaale u ah yaxaas. isla akhrino yaxaas, yicib, yaanyo, yaambo. xarfihii af soomaaliga shibanayaasha ayaa halkaas noogu dhammaaday. waxaana ardada aan ka codsanayaa in sawiradaas qaybtood iyo magacyada ay xifdiyaan. tusaalahaan haddano kale sawirkan halkan uga jeedidoo kale yaxaas ama yaanyo haddaad soomaali ahaan u sheeg lagu dhaho waa inaa u garan kartid yaanyo in laga wado yaanyadan ama yaxaaska. mafahantan caruurey? sawiradan horeyba qaybtooda usoo aragteen. isku day in aad dabcan aad qorto magacyada sawirada. haddii aad warqada haysato warqad ku qor sawirkan koowaad magaciis magacee loo yaqaanaa, sawirkan labaad, sawirkan saddexaad. haddii aad youtube-kana daawanayso qaybta commentiga kusoo qor caruurey. lambar 1 waxaa la dhahaa magacaas, lambar 2, lambar 3. marka qaybta commentiska nagula wadaag insha allah. maxaa soomaali lagu dhahaa sawiradan aad arkayso? sawirka 4aad maxaa af soomaali lagu dhahaa? sawirka 5aad, sawirka 6aad, sawirka 7aad, sawirka 8aad. sidaasa noo balana caruurey. haddii aad muuqaalkan youtube-ka ka daawanayso qaybta commentiska ayaad waxaad kusoo qoraysaa sawirka koowaad magacaasaa la dhahaa, sawirka 2aad, 3aad, 4aad, 5aad, 6aad, 7aad, 8aad. haddii aad xaafadda joogto weydii hooyo ama aabe ama walaalaha kaa waaweyn wixii aadan garanay. iskuulka haddii aad joogto macalinkaaga weydii. haddii aad qalin warqad haysato qalin warqad ku qor 1 2 3 4 5 6 magacyadaasaa la dhahaa. marka insha allah dadaal wacan caruurey ama arday aada u mahadsantihiin. waa ku mahadsantihiin inaad muuqaalkan aad daawateen, inaad macalin mustafa dhegaysateen. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. waxaana rajaynayaa inaad wax badan aad ka barateen muuqaalkan iyo kuwo kale oo badan insha allah ayaan dabcan idinla soo wadaagi doonaa hadduu ilaaha idmo. youtube-ka macalin mustafa isha ku hay oo la soco markasta muuqaalka aan soo gelino. aadaa u mahadsan tahay. maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan hadduu habeen kuu tahay, ama subax wanaagsan haddayba subax kuu tahay. intaan mar kale ismaqli doonno insha allah waxaan idinkaga tegayaa waa macalin mustafa oo idinkaga tegayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.